man xidhnayna waa nastay nasasho fiican ayaan helay alxamdulilah dareenkaygu waxa weeyaan waa dareen fiican weeye aad iyo aad baan u fiicnahay wax dhibaatay ma jiraan waxa weeyaan horta ma jecli arrimaha qaar ismaan lahay inaan macaawa maanta hoos ugu daadeg aniga qabashadaydii waan ka hadlay oo waxaan kaga hadlay uun ku soo koobay qisadii nebi yuusuf waqad axsana bii id akhrajanii min asijni wajaakum min albadwi id akhrajanii min asijni wajaakum min albadwi min bacdi an nasaqa shaydaanu bayni wa bayna ikhwatii marka intaasun baan horta ku soo koobay oo waxa weeyaan nebi yuusuf oo aad garanaysaa fadligiisa iyo haddii aan la belayay maqaamkiisa markii ay walaalihii wax dhex mareen oo wax tirsanayay weliba markii labadiisii waalidii walaalihii u yimaadeen wuxuu ilaahayba u mahadnaqay waxaan aad iyo aad ilaahay ugu mahadnaqayaa buu mar haddaan anna meeshii aan ku jiray ka soo baxay idina aad baadiyey ka timaadeen min bacdi an nasaqa shaydaanu bayni wa bayna ikhwatii markuu shaydaanku naga dhex shaqeeyey markaana waxaan odhan karaa anigu waxaan ka shaqaynayay nabad un bay ahayd waxaan carmo kaga hadlayna nabad bay ahayd waxa weeyaan mowqifkayguna waa nabad weeyaan shaqadayduna nabad weeyaan haddeerna nabad baan ku baaqayaa tii aan ku hadlayay nabaddii aan ku hadlayeyna waxa weeyaan sharaf bay ii tahay inaan ku hadlo maantana waxa weeyaan inaan wax iigu siyaaday maahay inaan nabaddii kasii shaqeeyo mooyaane waxa weeyaan waxaan dib uga gaabinayno male waxa weeyaan somalilan nabad baa u dana xukuumaddeeday u dan tahay madaxday dan u tahay shacabkay dan u tahay puntland nabad baa u dana madax iyo shacab dan bay u tahay waxaan qabaa aad iyo aad waxaan uga xumahay intiina kaga dhimatay aad iyo aad baan uga damqanayaa wixii xaggaa ka dhintay iyo wixii inagayna ka dhintay ehelkeennii weeyi marka haddeerna waxaan leeyahay colaad soomaaliya way ka daashay meel walba dhiigga baxa weeyaan cid kastay wax ka dhinteen nabadgelyo ayaan ku baaqayaa waxaan u soo jeedinayaa in aan ilaahay ina ku keenin wax dambe anna waxa weeyaan dee doorkaygii nabadoonnimo waan sii jadiidinayaa un halkii un baan ka wadayaa xukuumadda somalilandna waxa weeyaan si nasteexa iyo walaaltinimo ayaan ugu soo jeedinaya inay aqbasho oo qaadato waanuna ka shaqayn doonaa nabadgelyada kama daali doono mowqifkayguna waa nabadgelyo carmataan kaga hadlayna nabadgelyo ahayd haddeerna waan kaga hadlayaa waana ka shaqaynaynaa waxaan kaloon aad iyo aad uga xumahay intii aan xidhnaa dhibaatadii ka dhacday gobolka sanaag iyo ehelkaygii aad iyo aad baan nooga damqanayaa wixii ka dhacay iyo dhibaatadii ka timi iyadana si dhaqsaa baanu uga howlgelaynaa waxaana jecelnahay inaanu anagu dhexdayada ka dhammaysano dad ehelo aan kala maarmin baanu nahay inaanu ka dhammaysano wixii naga xumaaday hore nooga xumaaday ee naanays nagu keenay ee cid waliba nagu dhaliilaysana aanay dib u iman kastoo arrinkayga ka hadashay ama aniga intii aan hawshaydu ay hakadka ku jirtay ehelkayga iyo caruurahayga iyo xaasaskayga oo ku dhibtooday ama asxaabtaydii ama cid kasta oo arrinkayga si waayeeltinima iyo dadaal ka gashay oo uga hadashay aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa soomaalidu waxay tahdaa gacmo geel jire hoos baa loo maydhaa arrimaha qaar hadda halkan kaga hadli maayo waxa weeyaan anigu arrinkan ugu weyne maanta somalilan u yaalla ama mandiqadeenna yaalla waa nabadgelyo arrimo yaryaroo hoose oo arrimuhuna waa maynara iyo wax mayjara wixii maynara ee gudaheenna ee dhexdeennahana ma jecli inaan hadda ku barbariiqdo ama aan ku noqdo cabdiraxmaan cirana waa saaxiibkay aad baan ugu mahadnaqayaa inuu qadiyadayda ka hadlo weliba aniga oo haddii allaba leeyahay uu xiga tirsanayey inuu arrinkayga ka hadlana waan uga mahadnaqaya waana saaxiibkay weeyaan siyaasadda un baa iskale dee barbariiqashada waa saaxiibkay weeya waxaa ku yidhi waxa weeyaan anigu ninku inuu wax qabto un baa muhiima annagu inaanu wax qabanno oo dadaalkayga muujinno oo aanu dalka hoggaan u dooranno iskuma ciilkaambiyeyno waana waajib bahayd inaanu qabanno madaxweynehana waanu doorannay waanu karaamaynay rag saaxiibana waanu hayn weliba waxaa is leeyahay mala isagu saaxiib kulama hayna adaa saaxiib la ahaa
waan hubaa inaan saaxiib lahaa haddeerna waxa weeyaan dee saaxiib baanu nahay haddii aan laba leeyahay waxqabadkiisana isagaa imtixaan ku jiro oo inuu imtixaan ka gudbo la rabaa annagu intayadii waajibkayga waanu qabanay laakiin isagaa imtixaan u yaalla isu uga gudbayo weliba inaanu wax la toostoosino mooyaane haddii intuu dadaalka ku jiro inaanu waxba xaggayga kaga yimaadaan diyaaruma mar haddaad geed ku tacabtaad beerto inuu hagaag